naftaada markaad habayso nitaaqana aad u diiddo daruurana aad la doonto nuurkii noloshaad heshaayo neecawbaad dugaashataa naxliyo xumahana nacdaa nabdooglana aad digtaa عكسكو وأودرّو كدعدا مسكحدا هي قلبيga qofka ibn aadamka taas oo qofka ku kalifta in aanu hawlgelin in aanu qaban wax badan oo qofka awoodi karay عكسku waxa uu yareeyaa wax soo saarka qofka waxa aanu qofka ka dhigaa qof bilaa wax soo saar ah oo aan awoodin xataa in uu qabto shaqooyinka ama sabab hawlaha ugu fudud ee qof ibn aadami qaban karo wax kasta waxa uu leeyahay wax sababa ama sakeena عكسك waxa keena waa dib u dhigashada hawlaha aad qaban lahayd hadii aad maanta ugu talagashay inaad hawl qabato qaba isla waqtiga aad joogto sababta dib u dhigashadu maaha wax wanaagsan waana wax kugu sababi kara in aad noqoto qof caajis ah oo wax soo saarkiisu aad u yaraado waxyaalaha caajisku keeno waxa ugu horeeya in aad noqoto qof bilaa wax soo saar ah oo aan la tartami karin qeyrkii kaas oo markasta caawda niyajo badanna kala kulmay noloshiisa iyo dhammaan deegaanka ku xeeran عاجزك waxa uu keenay inaad noqoto qof aan habaysnayn si fiican uga soo bixi karin shaqo maalmeedkiisa kaas oo ay ku adkaato in uu wado hayaanka ugu jiro ka dhabaynta himiladiisa nololeed qorshe la'aantaadu waxay sababi kartaa inaad noqoto qof caajis ah kaas oo wax soo saarkiisu hoos u dhaco ama se noqdo qof aan wax soo saar lahayn ee la kulma niyad-jab iyo daal noloshiisa oo dhan ku wareegsan يوم أو حيالها كنا إن وقف قدرين عاجز ويا قف كستا أو ابن آدم وح أمهم سن إلهي سبحانه وتعالى يوكن أديده وإن وعبده إلهي بالقرآن يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي وحنا ورين نسقون عبدنا وديده نكحنا ما كلا جاي ما تيار كجود اللي جسمي هي واحد شراء يورالي غير والدنيا دي تعالوا شحي كل قرش سنة قرطة هدي أودي يلي كرويدا إن يورالك يورال سميسته أما سيارة سميسته ملاش أنت عناش شحي وحيكون كل فيسا إن وعاجسكو سوق رعاء الباب كاجا سامينا كويشة هدي هيسن ديريجلين أما سيد الأرض كهشو ديريجلين وحهوبالا إن وعاجز نقول دون متك الصامية أو كاجلافتا دمان مستقبلك يور أساساتي هتسمينها وحيالا كلا عاجز كنا وحكم إذا عبادة يريدا أما إن الحديث كي يدقي إلهي من دحي سبحانه وتعالى أتشوفه كرسوني دريد لفت جد وحاي كلتين قادتها إن قفك وكدعو عاجز سيدو كلا وحد عكرتا إن وجدك كتشر حنون كاسو بسببية إن نقطة قف عاجز سيادو أدرين سنين هذا سيادو بليستو عاجز كاجا أو أدوك كرمرتو وحاضر بهنتهاي إن الاستعمال شو قضبضا عين شيء دوما قضب كوجور يكون قنايا إن أدحوت سحرير كهذه الله إلا الله سبحانه وتعالى ذلك أنت بدن عاجز كحلوبية قناة إن أنا مناكسنين حرير كهذه الله سبحانه وتعالى تاس أو أي عريري كشر سلاد دودو وأنا أنت بدن سلاد أي سكسك كذا مساء يتكلم سيدا كله عبادات كوجا كله إلهي كوجي سبحانه وتعالى يومك تنسدي لوجبنا مركين أد وناجسو حريرك إلهي الله سبحانه وتعالى يوحكوف ضدينسا إن أذكر مرتبط كقوليستو عاجز كذا طب كلا بضحى ونقولنا يا دب هاوديان إسلا هوشة أدو تلقى شيء إن أد قبته ما أنت هذه قرشة ستي إن أد أخذ دبو وإن أد أخذها ها أنا أقولان إن أديبو دقته هذه أد قلت لك شيء إن أد مساجد كنت تجمع أم بقى تكتو الصلاة اللي قاعد تاجتها وإن تكتها الدب هاوديان كل يوم يجران عقلتك هرمانية قاس أو أي نفتح كل شيء يسوع إن أكيد بكرين سيدا إن أدبري تولو كله تكتو إن أدبري تولو كله هولو قبته لكن مركز تلا تجعلن حكينا يلي نفتح هذا إن أديبو دقته هوشة أي كوه بانتهاي إن ما تقبته si aad ugu guulaysato xadskaaga
waxaa kula gudboon in aad yarayso waqtigaad isticmaasho social media ama se baraha bulshada lagala xidhiidho waxaynu aragnay dhalinyaro badan oo isticmaasha ama se camal u noqday inay isticmaalaan baraha xidhiidhka bulshada taas oo dhalinyarada ka dhigtay qaar bilaa wax soo saara fadhiya oo fadhi ku duri roona marka isku day in aad waqtigaaga ugu badan aad geliso wax soo saarkiisu aad u sareeyo social media marka isticmaalaysa isku day in aad u isticmaasho si wanaagsan oo faa'iido kugu jirto dadka inta badan caadiska waxa lagu yaqaanaa in ay xilli dambe kacaan xilli dambe inaad kacda waxa ku sababaysaa in qorshayaashaadii noloshaadu ay dimaan sidoo kale farxadaadii iyo ididiiladeedina noqoto mid aan aad ka badhabayn karin qodobka afraad waxa noqonayaa inaad samaysato jadwal maalmeed jadwal aad ku qorato hawl maalmeedkaaga ama se hawsha aad qabanayso maalintaasi waxay kuu saamaxaysaa in aad ka kormarto aad ka guulaysato caadiskaaga qodobka shanaad dhiirigelintu waa shayga ugu muhiimsan ee qofka ku riixa inuu ku kaco hawlgal ama se uu sameeyo ficil waa in aad heshaa ku dhiirigelinaya in aad ku kacdo ficil oo aad shaqayso ama se aad wax qabato markasta oo aad hesho wax ku dhiirigelinaya in aad hawl qabataa waxaad ku saamaxaysaa inaad kormarto ama se aad ka guulaysato caadiskaaga qodobka lixaad ka fikir aakhiradaada ogow in adduunyadu ay tahay ama se noloshan ay tahay nolol ku meel gaadh ah oo aan ballaarnayn ama se aan dheerayn cimrigaagu yahay mid iska kooban halkana ogsoonow inaad u joogto shaqo aad u shaqaysanayso daartaada aakhiro inaad xajistaa meel la kagama jirto jadwalkaaga nololeed ee ilaahay subxaana wa tacaala ee kugu talagalay markaa ka fikir aakhiradaada oo marnaba ha ogolaan inuu caajisku kaa lumiyo waqtigaaga ee qabso waxaad adduunkaaga iyo aakhiradaadaba aad ku aflaxayso qodobka toddobaad in aad subaxa hore inta aad kacdo aad jimicsi samayso ha ahaado orod ama si ha ahaado jimicsi kale oo jirkaaga ku dhisayso waxa ay ku saamaxaysaa in aad ka kormarto caadiskaaga waayo caadisku inta badan waxaa ku dhacaa dadka ku raaga sariirta subaxii aan goor hore ka kicin markaa ku dida inaad sariirta goor hore ka kacdo ama se hurdadaada aad goor hore ka toosto si uu caadisku kuu daayo iskuna day inaad hawle ku fuliso awoodda kugu jirtaa adiga si uu wax soo saarkaagu kor ugu kaco una noqoto qof ku foosaa noloshiisa adduunyo iyo tiisa aakhira qodobka sideedaad in aad la sheekaysato naftaada oo aad samayso waxaan la dhahdo positive self talk amba la hadalka tolmoon ama togan naftu waa mid ka mid ah waxyaalaha aad ka kormar karto ama aad ka guulaysan karto caadiskaaga waxaad soo qaadanaysaa waraaq iyo qalin deetana waxaad qoraysaa dhammaan waxa wanaagsan ee aad doonayso inaad samayso nolosha taasi waxay kuu sahlaysaa in aad isku aragto isbedel maalinba maalinta ka dambaysa kusoo dhacaya naftaada ugu dambeynta waa inaad ku dadaashaa in aad joogtayso dhammaan hawlaha iyo qodobada aad kaga kormarayso ama se aad kaga guulaysanayso caadiskaaga joogtayntu waa shayga keliyata ee qofka u saamaxa in uu noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo qof ka dhaqaaqa halkuu taagan yahay oo gaadha halka uu hiigsanayo u dabaaldeg guulahaaga shakhsiyaed iyo horumarka aad samayso waa huban inaad gaadhi doontee kac adigoo leh waxay afro ma jabo waxay tiigsadaa samir filashadeedu waa khayr waxaan baafiya